بسم الله الرحمن الرحيم مروني مدن كسر دوّada barnaamijkii taxanaha ah ee xuska sayniska teknolojiyadda barnaamijkii kan ka horeeyay waxaan kaga hadalnay operating systemka ama waxaan ugu magac yeelnay barnaamij sareed ama operating system ama waxaan karnaa kale ka shaqaysiiyay waxa weeye barnaamijka ka shaqaysiiyay computerka barnaamij sareed la'aanteed ama operating system la'aantii computerku ma shaqaynayo waxa weeye ka shaqaysiiyay oo barnaamij ka shaqaysiinay computerka waxaan hore u soo aragnay operating systemku ama ka shaqaysiiyo inuu yahay dhaxdhaxaad u dhaxeeya qofka bini'aadamka iyo computerka oo kala turjuma amarada iyo jawaabaha qofka bini'aadamka hawshu ka gudanayo computerka inuu u sheego barnaamij sareedka u turjumo dabadeed computerka jawaabu bixiyo loo soo turjumo qofka bini'aadamka hadalada uu fahmayo marka natiijada gaarnay ahayd in qofka bini'aadamka iyo computerka u dhaxeeyo operating systemku iyo barnaamij sareedku waxa kale oo ina jirta maanta inaan sheegi doono inuu barnaamij sareedku ama ka shaqaysiiyuhu uu yahay barnaamij u dhaxeeya softwarada dhammaantood iyo computerka macnaheedu waxa weeyaan softwaradu waa software waxa weeyaan barnaamij hawleed baa la odhan karaa waxa weeyaan barnaamijyo hawl gaara guuta waxa ka mid ah softwarada kuwa loogu talagalay inay qoraalada wanaajiyaan ama qoraalada suubiyaan waxa kaloo jira kuwa loogu talagalay sawirada in lagu sameeyo waxa kaloo jira kuwa loogu talagalay xisaabaha inay fuliyaan waxa jira kuwa kale oo filmaanta lagu daawado kuwa internetka lagu galo kuwa emailada lagu diro marka software walba hawl u gaar ayuu fuliyaa hawsha u gaar ku fulinaysa uu fushado hawshiisaas wuxuu u baahan yahay barnaamij sareed ama operating systemka u dhaxaynaya computerkii iyo softwarekii oo kala turjumaya hawshan u fududeeyo inuu fuliyo marka operating system la'aan softwarada waxa la wax faa'iido yeelanahay ma jirto nimanka computerada softwarada sameeyana markay software suubinayaan ama sameynayaan waxa ugu talagalaan softwarekaasi inuu la shaqeeyo barnaamij sareed ama operating system u gaar ah waayo softwareka waxa loogu soo talagalaa barnaamij sareedka maaha computerka laguma talagalo laba computer isku mid soo wada iibsaday hadday operating systemka uu kala gedisan yahay software mid ma wada isticmaali karayaan softwareka wuxuu la shaqeynaya waa operating systemka computerka wuxuu la shaqeynaya maaha markaad software soo iibsanaysiin waanaad iska hubisiin softwarekan inuu la shaqeynayo operating systemkiina ama ka shaqaysiiyina ama inuu la shaqeynin waanaad iska hubisiin waxaa kaloo jirta iyadna operating systemku ama ka shaqaysiiyuhu inuu yahay agaasimaha computerka hore waxaan usoo sheegnay inuu maskaxda computerku yahay microprocessor isaga wixii wada maamulaya laakiin agaasimo waxa uu ah operating systemka oo waxa la wixii xubin computerka ka tirsan ka kooban hadday xubno noqoto computerka xafiska ku dhex jira ama xubno dibadda ka yar haday tahay oo sida kuwa daabacada kuwa maqashiyaasha waxay xubno computer ku xidhan oo dhan waxa agaasimaya ee isticmaalkooda shaqadooda wada eegayna si fiican u socoto waxa weeyaan operating systemka isaga sheegaya xubnuhu inay si fiican u shaqeynayaan ama cilad ku jirto taas weeyaan marka waxaan oran karnaa natiijo aan ka gaarnay natiijooyinka xafidi karna waxaa kamid ah koowaad waxa weeyaan horta inuu operating systemku ama ka shaqaysiiyuhu yahay dhexdhexaad u dhexeeya softwarada iyo computerka ta kale waxay noqon kartaa waxa weeyaan in operating systemku ama ka shaqaysiiyuhu yahay agaasimaha computerka maxay ahayd agaasimaha xubnaha computerka si u dhan dhammaan microprocessor xubnaha kale oo dhan isku xidha oo ka shaqaysiinaya mid kale iyadna waxaa jirta aad iyo aad muhiim u ah oo waxa weeyaan softwaradu waxay u baahan yihiin si hawlahooda u kala gutaan hawlaha kala duwan u kala gutaan waxay u baahan yihiin inay microprocessor isticmaalaan oo microprocessor maskaxda computerka inay maskaxda la shaqeeyaan bay rabaan si ay hawlahooda u gutaan hadday software tahay wax xisaabinaya ama software wax soo saaraya hadday tahay wuxuu u baahan microprocessor u baahan yahay marka dhowr software markay isku yimaadaan u baahdaan computerka microprocessor waxa dhacaysa meeshii moogtahay inaa la isku wada yimaado waxa arintaas markaa kala hurgufaya oo fududeynaya waxa weeyaan operating systemka ama ka shaqaysiyaha tusaale kooban qaadano tusaalahaas waxa weeyaan in laba dariiq laba wado oo isku imanaya labadaa wado isgoys bay isku imanayaan sida sawirkiina ka muuqata shaashada imika isgoyskaasi waa meesha amaaradda casaankan ku sameynay isgoyskaasi labada wado way wadaagayaan marka si wanaagsan loogu wadaajiyo waxaa loo baahan yahay askari kala haga moogtahay isgoyskaasi marna wuxuu u fasaxayaa wadadii koobaad marna wadadii labaad buu fasaxaya marna wadadii koobaad buu socon wadadii labaad buu fasaxaya saas u wadaa marka midhkii ama labadii midhba wadda u fasaxaya inay isgoyskaas isticmaasho marka askarigaasa kala hagaya barnaamij sareedku ama operating systemku ama ka shaqaysiiyuhu softwarada u baahnaa microprocessor ayuu isaguna saasoo kale u kala hagayaa oo kolba mid u banaynaya inuu microprocessor la shaqeeyo kasoo qaadan iminka 4 software oo u baahan microprocessor la shaqeeyaan 4taas software wuxuu noqon karaa mid software koobaad inuu yahay ku qoraalada wanaajiya
softwareka labaad inuu yahay ku sawir lagu sameeyo, softwareka saddexaad inuu yahay ku videoga lagu daawado ama filmaanta lagu daawado, softwareka afraadna uu yahay ku xisaabaad ka shaqeeya. marka afartii software ama barnaamij hawleed waxa u baahan yihiin hawlaha u fuliyaan ama u gutaan inay microprocessor la isticmaalo shaqeeyaan. marka operating systemka ama ka shaqaysiyaha ayaa kala hagaya oo kolba muddo cayiman u ogolaanaya inuu software ba la shaqeeyo microprocessor. marka sida shaashada inagu muuqata software walba qayb buu ka qaadanayaa inuu ku shaqeeyo microprocessor la shaqeeyo. sidii askari u kala hagayo ayuu operating system u kala hagayaa. marka waxa natiijooyin waxa ka xasuusan karnaa inuu hawlaha operating systemka ama ka shaqaysiyaha laga sugayaa kamid yihiin inuu agaasimo ama si fiican u kala hago isticmaalka microprocessor. waqtiga microprocessor ama awood xisaabeedka microprocessor inuu u kala qaybiyo softwarada kala duwan ee u baahan inay xisaab fuliyaan ama waqtiga microprocessor isticmaalaan. saas oo kale ayuu kaydaha fudud oo isla kaydaha lagu shaqeynayo kaydaha shaqaha aan hore u soo sheegnay oo u baahan yihiin softwaradu. saas oo kale operating systemku ama ka shaqaysiyu uu kala qaybiyaa oo kaydaha fudud ama memoriga ha uu kala siiyaa softwarada kala duwan ee u baahan. marka natiijooyinka waxaa kamid ah ina operating systemku ama ka shaqaysiyuhu horta softwaradii u dhexeeyo computerka, talabaad inuu agaasimo waxa la wixii xubno computerka ka kooban yahay, saddexaadna inuu si wanaagsan oo habsami oo heer sare ah u kala qaybiyo waqtiga shaqo iyo waqtiga iyo awoodda xisaabeed ee microprocessor ha uu kala qaybiyo softwarada. taas waxa kale jirta hawl yadna muhiima oo laga sugayo ama uu qabto operating systemku ama ka shaqaysiyo. hawshaas waxa weeyaan xalinta khilaafaadka. khilaafaadku maxay kamid yihiin? khilaafaadku waxaa kamid ah in moogtahay xubin kamid ah imika xubinta wax lagu daabaco kale hay si fiican u gashanay computerka ama koranka ku jirin. marka ina qofkii wax daabacahu rabo markaad u daabacadii tuurto waxay imanaysaa ina meeshii afsafkara waa ka yimaado computer inuu joogsadaa dhici karaysa. marka operating systemka ama ka shaqaysiya ayaa dhex galaya oo khilaafaadkii xalinaya oo qofkii u sheegaya inuu printerkii ama meesha alaabtii wax daabacaysa ayna shaqaynin oo la fiiriyo oo la eego inay gashan tahay computerka ama inay dab gashan tahay. khilaafaad kale iman karo xagga kaydaha fudud memoriga ka iman kara oo laba software isku hirdin karaan oo isku qabsan karaan meel moogtay qayb meel lagu kaydinayo. taasna waxa kala xalinaya waa operating systemka ama ka shaqaysiya kala xalinaya. waxa dhici karta iyadna qofka bini'aadamka ama qofka isticmaalaya inuu moogtahay shaqo computerka uu karin ku dalbado ama waxyaabo computerka uu sameyn karin ha taabto. taasna computerka ma cadilayso. waxa kala hagaya oo hagaajinaya waa operating systemka ama ka shaqaysiyaha ayaa odhanaya qofka bini'aadamka odhanaya waxaan dalbatay wax la qaban karay maaha si kale u dhaqaaq. marka wixii khilaafaad soo dhex gala moogtahay hadday noqoto qalabka xubnaha, hadday noqoto softwarada dhexdooda, hadday noqoto softwareka iyo qalabka, hadday noqoto qofka bini'aadamka iyo softwarada, hadday noqoto qofka bini'aadamka iyo qalabka, wixii khilaaf ama moron ama meesha yimaada ama sirdi yimaada waxa xalinaya oo kala dhex galaya waa operating systemka ama ka shaqaysiyaha. marka muhiimadda operating systemku leeyahay halkaas ka arkaysaan. haddaan soo koobno waxa imika soo gaarnay natiijooyinka inuu operating systemku ama barnaamij sareedka ama ka shaqaysiyo 5 arrimood oo muhiim aad iyo aad muhiim u fuliyo computerka. 5 arrimood maxay kala yihiin? waxay kala yihiin koobaad waxa weeyaan operating systemku inuu yahay dhexdhexaad u kala turjumo qofka bini'aadamka iyo computerkii. horaan u soo aragnay inuu microprocessor maskaxda computerku ha ku shaqeeyo af la yiraahdo af aaladeed ama af electronic afkaasoo bini'aadamku fahmi karin. marka waxa uu kala turjumayo jawaabihii iyo hawlihii microprocessor looga baahnaa u kala turjumay qofka bini'aadamka waxa weeyaan operating systemka oo turjumaan u kala maxay ahayd qofka bini'aadamka iyo microprocessor. hawsha labaad ee microprocessor operating systemku qabto waxa weeyaan inuu softwareadii qofka u baahnaa inuu hawlihiisa ku fushado softwareadii dhammaantood iyo computerkii ha dhexdhexaad u yahay operating systemku ka shaqaysiyo. arrinta saddexaad waxa weeyaan wixii xubin gudaha ku jirtay dibadda guudka taalba wixii xubin computerka kamid ah inuu agaasimo oo shaqadooda inay cilada ku jirto inay si fiican u shaqeynayaan ha wada eego. waxa weeyaan operating systemka ayaa arrimahaas oo dhan ku shaqale oo haddii xubin jiida lagu soo kordhiyo, haddii xubin jiida laga saaro, haddii xubin cadilan tahay, haddii xubin dab lahayn, waxaasoo dhan waxa suubinaya oo eegaya oo agaasimaya oo xalinaya waxa weeyaan operating systemka ama ka shaqaysiyaha. waxa kaloo iyadna jirta softwaradu noocay doonaan baa noqdaan in si ay u shaqeeyaan waxay u baahan yihiin maskaxda in isticmaalaan maskaxda iyo xasuusta. maskaxdu waa microprocessor, xasuustuna waxa weeyaan memoriga ama kaydaha fudud. marka xasuustaasi maskaxdaasi
waxa u kala qaybinaya oo kalba mid u dhiibaya si u isticmaalaan waxa weeyaan operating systemka ama ka shaqaysiyaha ama barnaamij sareedka. waxa kaloo yeelin jirta wixii khilaafaad yimaada hadday noqoto khilaafad soo hore ugu soo sheegnay mid qalabka ka xubnaha qalabka yimaada mid softwareda ka yimaada mid aadamaha ka yimaada wixii khilaaf meesha soo dhex dhici karta in computerka joojiyo ama cadilo waxa khilaafkaasna xalinaya oo sahlinaya oo maxay ahayd u ogolo binaadamka inuu hawshiisa kasii wato waayo waxaa dhici karta computer isagoo shaqeynaya in printerka laga saari karo ama screenka laga saari karo isma wataagayo marka printerka lagu soo cesho hawshiisa iska sii wadanaysaa marka screenka lagu soo cesho hawshiisa iska sii wadanaya waxaasoo dhan wax gaar ka haya oo ilaalinaya waa operating systemka maxay ahayd barnaamij sareedka ama ka shaqaysiyaha. marka waxaa noo muuqata inuu computerku hadduu operating system lahayn ama ka shaqaysiye lahayn ama barnaamij sareed lahayn waxa loo faa'iido leeyahay ma jirto. computerku bir xaafada dhex taar mu noqonayaa haddii barnaamij sareedkaas aanu jirin ama ka shaqaysiyahaas aanu jirin. waa aad iyo aad buu muhiim ugu yahay computerka si loogu shaqayn karo waayo computerku softwarada lama shaqayn kari keligii hadduu barnaamij sareed haysan ama ka shaqaysiye lahayn. binaadamku wax loo faa'iido u leeyahay ma jirto computerku hadduuna barnaamij sareedkaasi jirin ama operating systemkaasi aanu jirin. operating systemyadii u horeysay waxaa la sameeyey 1980kii taasaana keentay in computer la isticmaali karo koodiiba way computer hore iska jireen ilaa 1960kii computeradu way jireen laakiin jaamacadiyo dhul cilmi baaris ma lagu shaqayn jiray oo niman khibrad ka shaqayn jiray laakiin bini'aadamku ma isticmaali karin waayo ka shaqaysiyo kala turjumaami jirin. 1980kii ayaa dhowr operating system la soo saaray mar qura. dhowrka operating system waxay kala yihiin mid soo saartay shirkadda Microsoft la yiraahdo oo la oran jiray MS-DOS iyo mid kale soo saartay shirkad Apple la yiraahdo wali jirta oo iyadana la yiraahdo maxay ahayd Mac OS iyo mid kale Linux la yiraahdo oo soo saareen moogtahay jaariyad madax bannaan oo dad isku tagay soo saareen. marka saddexda operating system ama ka shaqaysiye ayaa computeradii ismaxay in dadka ku shaqayn karaan laakiin ka shaqaysiyaasha u horeysay operating systemyada u horeeyay waxay ahaayeen operating systemyo u baahan khibrad qofku inuu xogaha computerka yaqaano si uu shaqayn karo oo dad badan kuma faafin. marka 1990kii ay nimankii soo saaray operating systemyada u horeeyay hay arkeen in computerku soo ugu faafo ummadda oo dhan hadii la rabo in la sahlo shaqadiisa la shaqayntiisa. marka waxay soo saareen Windows-ka Microsoft soo saartay Windows-ka oo ka dhigan daaqad. marka computerkii waxa laga dhigay shaqadiisii daaqado la furfurayo daaqad la xirayo daaqad la furayo oo wixii macluumaad looga baahan laga dhaxarkayo. waxa kale oo soo baxayna mouse waxa la yiraahdaa mobile aan u bixinay oo iyana sahlayso qofkii hal meel tuujinayo wuxuu doonayo kala soo bixi karayo oo u baahan inuu programming wax culus garaaco oo hadduu doonayo inuu film furto meel tuujinayo hadduu email diray meel tuujinayo. marka waa u sahashay qofkii bini'aadamkii inuu si sahlan ama si fudud ula shaqayn karo computerkii. taasaa keentay in computeradu ku faafaan dunida 1990kii waxa soo baxay Windows 2.0 ku leeyahay oo kii hore Windows ku horeeyay soo saarayna 1.0 waa ka horeeyay laakiin isku mid u baahan. waxa 1995 soo baxay Windows 95 ama Windows 95 oo isna moota ka casriyeysna ka fiicnaa dabadeed saas isku daba socdeen 98 mid kala soo baxay oo nadeel oo Windows nadeel 95 Millennium. dabadeed waxa soo baxay Windows XP oo soo baxay maxay 2005tii. dabadeed waxa soo raacay Windows maxay ahayd Vista oo 2008 soo baxay. imikana waxa la isticmaalaa Windows 7 ama Windows 8 Windows 8 ama Windows 7 baa la isticmaalaa oo Windows 7 kala isticmaalo oo aad iyo aad u fudud oo qof walba computer shitaabaha wuxuu doono ku sameeyo wuxuu hawluhu doono ka soo fushan karo. marka barnaamijyadaasi operating systemka ama ka shaqaysiyaashu waxa weeyaan barnaamijyo aad iyo aad uga muhiim u ah oo ka shaqaynta iyo ku faafida computerka ku faafida dunida. waxa kale oo dhawaan iyo kuna imka soo baxay in la xusan mudan operating systemyo jadiid ama ka shaqaysiyaal jadiida kuwaas oo loogu talagalay maxay ahayd telefoonada casriga ee smartphone-ka loo yaqaan ama telefoonada gacanta ee oo yakuna iska noqday computer yar waayo softwarada qaataan hawlo badan bay fuliyaan oo xisaabaad bay sameyn karaan waxba lagu daawan karaa wax kasta qabtaan. marka software badan bay la isticmaalaan. marka softwarada ugu shaqeeyaan telefoonadaas oo telefoon baa laga darin jiray in computer yar bay noqday waxa loo baahday in operating system u gaar ah loo sameeyo. marka laba shirkadood markiiba isku tuuray moogtay in soo saaraan operating systemyadaas ama ka shaqaysiyaashaas. labada shirkadood waxa kala yihiin shirkadda Google la yiraahdo oo bilowday iyo shirkadda Apple la yiraahdo. marka Google waxa soo saartay Android system maxaa la yiraahdaa operating systemka Android la yiraahdo ama ka shaqaysiya Android la yiraahdo oo boqolkiiba 60 imika smartphone-yada dunidu ay ku shaqeeyaan. shirkadda Apple la yiraahdo waxa soo saartay iOS la yiraahdo
operating system EOS la yiraahdo ama ka shaqeysi EOS la yiraahdo oo boqolkiiba 20 telefoonada gacanta ee dunida ku shaqeeyaan marka labada shirkadood ayaa aad iyo aad moogtahay u qabsaday moogta qaybtaas inkastoo Microsoft iyo nimanka soo daba dhaqaaqdo ay soo saartay Windows 8ka oo isagu computer la shaqeyn karaya telefoonada gacanta la shaqeyn karaya oo rabto moogtahay in labadaas isku qabsato labadaas suuq oo kuwa kalena in ku soo moogtahay maxanka iska ilaaliso marka wakaas operating system taas kale yihiin waana barnaamijyo aad iyo aad muhiim ugu ah haddaan sheegno moogtahay barnaamijyadan micro operating system computer lagu isticmaalo waxaan hore soo sheegnay Windows ku jiro laakiin Windows ku ma jiro kaliya waxa jira kuwa kale Mac OS ka jira oo Windows ku eeg laakiin ka duwan xogaha iyo Linux ka marka waxa jira labada barnaamij Windows iyo Mac OS waa laba barnaamij oo shirkado iska leeyihiin oo shirkado soo saareen oo iibshaan oo lacag baa lagu gataa laakiin barnaamijka Linux ku waa barnaamij xor ah oo madax bannaan oo maxay ahayd jaaliyad madax bannaan oo ka kooban injineer dunida ku kala baasan ayaa soo saarta dunidana bilaash ugu soo saarta marka internetka laga soo bixi karaa kombiyuutaradu si fiican ugu shaqeynayaan ku shaqeeyaan si Windows ku shaqeyn kana u shaqeeyaa waana bilaash wax lacag oo taas ay ka timi jirto wayna moogtahay waa faa'iido weyn inkastoo qof dadka iska dabacada yeeshaan si u isticmaalaan kay ku bilaabaan in qofkii Windows ku soo bilaabay inuu kombiyuutarka Windows la shaqeeyo hadii loo galiyo Windows hadii kombiyuutarka loogu bedelo Linux ama Mac OS way ku adkaatay oo Windows ku jeclaysaa way Windows ku soo bilaabay qofka Mac OS ku soo bilaabay kombiyuutarka shaqadiisana hadii Windows loo galiyo ama Linux loo galiyo isna uu ka yaraa oo Mac OS kaas iska sii wata badi qofka sidoo ku bilaabay taa inkastoo jiraan dad kale bedelo kalba moogta operating system u bedesha Linux ka laakiin imika Linux ka soo kordhaya boqolkiiba 90 kombiyuutarada dunida maanta ku shaqeeyaan Windows Microsoft boqolkiiba 6 waxa ku shaqeeyaan waxa weeyaan Mac OS ilaa boqolkiiba 3 waxa ku shaqeeyaan Linux Linux ka imika soo tarmaya waayo waxa la arkay faa'iido badan baa laga arkay oo dadku ku isticmaalaan marka maanta intaas ku joojin caawintaas ku joojin baroonay mudanayaal maxay ahayd barnaamijkii xuska sayniska teknolojiyada kaga hadlayna operating systemka ama barnaamij saladeed ama ka shaqeysiyaasha barnaamijka ka noogu xiga hadii Ilaahay raado waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka Windows Microsoft Windows oo barnaamijka ugu badan dunida laga isticmaalo kaas oo si faahfaahsan u macneyn doono soo shaqeeyo waxyaabaha laga heli karo iyo faa'iidooyin kale gaari karo marka barnaamijkeena xuska sayniska teknolojiyada caawintaas noogu jooga Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh